labadana u jeedin iyagoo arooskooda joogo sawir iska galgalaya ninka waxa uu imaanay mid ay ayaan hore saaxiib ah jireen isaguna markuu arka arooskiisii intuu iloobo wuxuu ku dhaha ma aamini kari arooskayga maanta inaan ka soo qayb gashay aroosadana midoo saaxiibadeeda intay u timaadeen waxay ku dhahaysaa ninkan mujidido arooskaaga wuxuu ku ballamiyay mid ay saaxiib yihiin ka waran iyaduna intay xanaaqday waxay bilaabaysaa inay birtan ay dhulka ku garaacdo kuwa noo soo jeesteen markuu weydiiyo waxa ku dhacana waxay u sheegaysaa inuu iloobo shaqadii u taalay oo ahayd inay keega wada jaraan kadib waxay bilaabayaan labadooda inay keega si wada jira u wada jaraan xoogaa kadibna saaxiibadeeda intay u timaadeen waxay ku dhahaysaa labadaas mujida wuxuuda saaxiibtinimo way dhaafeen wax kale ka dhexeeyo mar labaad intay xanaaqday keega ay gacanta ku heeda midaan si kas ugu daadinay iyadoo ka dhigaysa waxaan inay shil yihiin ninkeedu intuu ka yaaba midaan sida u dhaqmayso wuxuu ka codsanaa inay meel gees u wada baxaan si ay wada hadlaan wuxuu ku dhaha qoftaana u jeeday 5 sano maan is arkin saaxiibo horaan anay adiga maxaa noo qasaysaa laakiin iyadu waxay u sheegtay waxaan ay labadoodu wadaan inay saaxiibtinimo dhaaftay ugu dambeyn wuxuu ku qanciyay waxaas ay sameynayaan inay ka keentay kala fogaanshaha ay waqti dheer kala maqnaayeen mar kale midaan waxay aragtay midkii ay saaxiibada ahaayeen oo mas'uul ku jira maadaama ay wixii saaxiibtinimo ku ekeen mas'uusha ugu soo dhaxgeliyay isagana waa ganaayo wuxuu weydiinaa sababta ay meeshan u timaaday maadaama ay tahay mas'uusha ragga oo kaliya aroosada mar kale saaxiibadeeda intay u timaaday waxay ku dhahaysaa arrintaas sidee macquul u tahay aniga ma ogolaa lahayn ninkii inuu mas'uulaha la galo naagaha kale intaasna waxay u raacinaysaa inaysan iyadu jaceylka aaminsaneen maadaama ay dadka dhan khiyaanadii ka bateen iyaduna markaan go'aan cad intay qaadatay waxay soo wadanaysaa ninkan oo xafladda joogay waxay ka codsatay maadaama la gaaray xilligii la dheeli lahay inuu la dheelo isaga dhawaa kalaaya oo la dheelaa xoogaa kadib midka aroosi lahay oo ordaya intuu u yimaado wuxuu weydiinaa waxa ka qaldan iyo waxa ninka kale la sameynayday laakiin iyadu jawaab dhan maysan siin midkana waa kana qoftii oo la dheelaya isagana ka tagtay intuu soo baxo midii isku dirka badneed u yimid maadaama uu iska gaad ku hayo laakiin iyadu si xun u fiirisay midaan intay soo baxdo midkii arooska ay sii ordaya intay ka daba timaaday ay soo wada baxay wax walba u qabtana wuu u sheeganay midaan way dhigeysanayday kadib intay soo orday makarafoonka qaadatay dadka arooska soo qayb galo dhan waxay u sheegaysaa inay meeshan ku kala tagaan uusan aroos ka socon laakiin isaga makarafoonka intuu ka qaado dadka wuxuu u sheegaa inuu xaaskiisa u qaadayo hees uu soo diyaariyay iyaguna ay dhageystaan heesna markii uu qaadayo midaan ay tay maqashay meesha soo gaaraysaa waxayna u sheegaysaa inay ka dhamaatay ay labadooda isla noolaadaan laakiin iyada waxay dhahaysaa anaga ka daba tagayo waan la soo hadli doonaa intay ka daba timaaday waqti badan oo ay hadlayso ugu dambeyn waxay ku qancinaysaa inay waqtigeeda sugato labadooda oo si wada jir u socda midkaan markuu arko wuxuu taagan yahay indhahayga waxaan ku arkay ma aamini karo xafladii markii ay dhamaato ubaxani gadaal u tuuraysaa si uu u qabsado qofka iyada ku xigo aroosaya saaxiibadeedana qabsanaydo isla markaasna waxay aaday midkii iyada isgaadgaadka ku haayay muuqaalkana intaas ku ekaayay hadda halkaas soo gaarta leegnoosa nimankan iyagoo salaad tukanayo ayaa ninkan intuu meeshan ka soo baxo nimankii tukanaya mid ka mid ah jeefkii ee lacagta ugu jirta ka goosana markii uu lacagtii soo qaatay isagoo meeshan iska marayo ayaa ninkan kale ka hor imaana isagana intuu iska naxo lacagtii dhan daadina ninkiya wuxuu weydiinaa marka adiga meeshan cidlo waayo iyo ku ceyrsanaa maxaa ordee isaguna wuxuu ku dhahaa niyow sidaa u malaynaysid maahan aniga meelaa ka daasanahay adigana waa iga soo horbaxday waana kaa nahay kadib intuu lacagtiisa aruursado meeshii isaga tegaa isagoo weli naxdintii ay ka muuqato midkan isagoo ninkii la yaaban ayuu wuxuu arkaa ninkii jeebkii oo soo goosanayay oo meeshii uga tegay jeebkii intuu soo qaato wuxuu u imaanaa nimankii salaada tukanaya oo salaadii ka baxay midkii jeebka laga goosanayana isagoo yaaban ayuu gadaal fiirinaa markii uu ninkan arkan wuxuu ku dhaha adiga waay maahan ninka tuuga oo jeebkayga iga goostay laakiin midkan wuxuu u sheegaa in isagoo meeshaas marayo oo nin lacag wata ka hor imaaday jeebkan oo dhulka ka soo qaaday midkii jeebka laga goostay saaxiibkiisa wuxuu ku dhaha aniga markii aan salaada tukanayay waxaan dareemay qof jeebka iga goosanaya maadaama aan salaad tukanayana waxaas iskuma mashquulin oo salaadeeda iska sii watay imaamkii iyaga salaada ka bixinaya wuxuu ku dhahaa maadaama uu ninkan idinku dhahay aniga dembi melihi ma iska dhaaftiin waxaa laga yaabaa tuug kale inuu yahay laakiin midkaan intuu soo boodo imaamkii wuxuu ku dhahaa ninkan meeshan cidlada keligiis muxuu ka sameynaa haddii uusan tuug ahayn midkii jeebka laga goostana ilaa iyo hadda wuxuu ku adkaysanaa inuu ninkan tuug yahay uuna isagu jeebkii ka goostay ninkaana ilaa iyo hadda wuxuu u sheegaa nimankan in uusan tuug ahayn laakiin qof aaminaya ma laha iyaga oo meeshii wada taaganaya hal mar waxay maqlayaan qof ku qaylinaya ee caawiya markii u yimaadaana waxay arkayaan midkii mar dhaweyta lacagta sooxadaya oo kuwan ku dhahaya hal mar le kaaliya meeshan iga saara intay gacanta ka soo qabtaanay meeshii ka soo jiidayaan ugu dambeynna rafaad dheer kadib waxay ku guulaysanayaan inay bannaanka keenaan markii ay bannaanka u soo bixiyeen iyagii wuxuu ku dhahaa iska kay cafiya lacagtaana u jiidiin idinkaa idinka soo qaatay qofkii jeebka idinka gooyana aniga waaye ninkiina wuxuu ku dhahaa markii aa salaada tukanaysa maqaskan intaan soo qaatay ayaan jeebka kaa goostay intaas kadibna anigoo sii ordaayo ayaa meel dhiiqaa ku dhex dhacay marka waxaan idinka rabaa inaad iska kiina cafisiin ninkii imaamka ayaga u ahaya wuxuu ku dhahaa waa iska cafinay oo orod iska baxa arrintaana mar dambe ha sameen muuqaalkana leegnoo saar labada nin gaarigan meeshan duurduurka yaala intay u yimaadaan iyo waxay bilaabayaan inay jaraan qufulkii ku xirnaay dhinaca gadaale labadii nin oo gaariga wada mid ka mid ah wuxuu dhahaa nin gaariga dhinaca gadaale wax ka qaylina maxaa waay kaala waa soo fiirinaynaaye kuwii tuugadahay mid ka mid ah wuxuu
arkaa nimankii inay soo socdaan saaxiibkiisna wuxuu ku dhahaa adigay kuu taallaa meeshiina wuu isaga cararaa ninkii gaariga iska lahay midkii la socdo ku qaylina wuxuu ku dhahaa meeshaan maxay u furan tahay markaan soo bixina waxaan kugu dhahay xir adigana waa ilowday hadda kadib waxaas ay igu samayn labadii nimood oo tuugadeed mid kamida waa kana guduhu ku jira waa la qaatay kadib taleefankiisa intuu soo baxsado waxa wacaa saaxiibkiisa la socda wuxuu ku dhahaa maxaa ka qadan meesha keligii maxaa iiga tagtay soo baxuu ku dhahaa hadda waa inaa iga daba timaadaa saaxiibkiisna wuxuu dhahaa war waxaasaa ka welwelin haddeera kaa daba imaanaa mootaha soo qaadanaya isiguu ku dhahaa tuugii gaariga lagu qaadanayo waa kana ilmo camal u ooyina wuxuu dhahaa war iga soo gaari nimankaan meel ii wadaan ma aqaaniye xoogaa kadib tuugii kale wuxuu helaa mooto wuxuu dhahaa niyow saaxiibkii laga qaatay iga dabageey nimankii gaarigii sidii ay u soo wadeen ayagoo meeshaan marsiinaya kuwii mootada watay ku hor jaraayaan tuugii kale si aan loo dareemin wuxuu iska dhigaa nin meesha maraya kadib gaariga dhinaca gadaal intuu kala soo wareego saaxiibkiis meeshii ka furaa tuugii gaariga lagu qaatay waa kana markii la badbaadiyey aad u farxa ilaahay u mahad celina tuugan kale wuxuu taagan yahay alaabtaana qaadana isagana wuxuu ku dhahaa maxaa ka qaldan aniga nafteyda haddii badbaadi alaabtan waa iska diinaynaa soo baxuu dhahaa markii uu meeshii galay si uu alaabtii u soo qaato nimankii kale waxay u tegayaan ninkii ay alaabta u wadeen isaguna wuxuu dhahaa aniga alaabta waa liiga bedelay marka magaalo kale loo bedelay alaabta ee magaaladaas orda geeya odaygii gaariga wada wuxuu arkaa haddana inuu albaabka gadaala furan yahay wuxuu dhahaa albaabkan maxaa ka qaldan wuuna xiraa labadii nin oo tuugada ahayd intii ay islahaayeen waxbadsada ayaa wax beel ku dhacday labadoodiina gaarigiyaa lagu qaatay midkaana saaxiibkiisa canaanana wuxuu ku dhahaa adiga iimaan la'aantaaday waxaanoo dhan noogu dhacayaan isla markiina wuxuu bilaabaa inuu saaxiibkiisa inta soo qabto oo kal iyo laab u garaaco muuqaalkana wuxuu muujinaa wax intaa haysato intii aad islahayd wax ku darso inaa wax dhan beelaysid haddii aad rabtid marka in aad daawatid muuqaalo badan oo kuwaanoo kale ah hadda akoonkan falow dhaho muuqaalkaana intaanu ku ekaaya hadda halkaas soo gaarta leeg noo saar ninka maalin intuu gurigiisa ka soo baxo wuxuu arkaa dooro gurigiisa hortiisa fadhisa weliba ukun ku dhashay ninkii doorada iska laaya wuxuu arkaa marka ninkaanoo dooradii iyo ukuntii isku darsaday wuxuu ku dhahaa marka dooradan adiga maa iskale maxaa isugu dhejinaya sidoo kale ukuntaana dooradeeda dhashay igu soo wareeji laakiin midkan ukunta wuu diidaa wuxuu dhahaa gurigayga horteeday ku dhalatay aniga iskale ukuntaan wax walba oo aad sheegtidna muku siinayo ukuntaan kadib nin wadada maraya wuxuu ku dhahaa maxaani ku dhacay midkan wuxuu dhahaa horta dooradan aniga iskale ninkan gurigiisa imaatay ukunay ku dhashay kadib midkan ukuntii isku dhejiyey midkan kalena wuxuu dhahaa horta ninkan dooradiisa way soo baxday gurigaygii ku hor dhashay marka ukuntaas aniga ma iska lihiyo midkan dukaanka iskale kuwaan wuxuu ku dhahaa anigaani kala bixinayo weliba qorshaan yahay qorshaasna wax kale ma ahan ee basbaasaan siinaa qofkii basbaaska cuni waayo wuu guuldarraysana midkan wuxuu taagan yahay marka ninkan ma aniga basbaas cunow iga badinaa warkan waa ka badinaa u dhahaa daqiiqada ma igu qaadanayo isagana cusbada ku kakacaysa wuxuu dhahaa midkan hadduu iga badiyo ukuntaan aniga ma iska lihiya isagaa iskale kadib midkan dukaanlaha wuxuu diyaarsanaa basbaaskiisa iyo alaabtii uu nimankan sii lahay alaabtiisa markii uu diyaarsado midkii koowaad oo ku bilaaba wuxuu dhahaa adiga alaabtan bilaabay sidee marka koobaad hoo cun markii uu midkan alaabtii cuna kii kale intuu ku soo bodo wuxuu ku dhahaa war laba xabahataa ma cunaysid anaa kaa huba aniga alaabtan kaa badinayo midkan kuleel dartiisa waa kana meesha luuqa uu ku jiraa kii kalena waa kana alaabtii loo diyaariyey waa la sii rabaa markii uu alaabtii basbaaska badneed cunay waa kana wuu rafanaa basbaas dartiis midkii tugaan lahayn ninkan kale wuxuu ku dhahaa war midkan daqiiqada ma kuu qaadanayo waa ka badinaya marka mid kale waa inaa cuntaa si aad uga badisid kadib intuu soo boodo wuxuu taagan yahay war midkan aniga ka badinaya kii kalena waa kana isagana wuxuu ku hayaa aniga ka badinayo kadib labadoodu tartankii sii wadanayaan ilaa ay ka dhamay gaaraan alaabtii uu ninkan gaariga ku watay midkan dukaanlaha kuwan wuu ka dhex faa'iidaystay alaabtii gaariga u saarneedna kala baroo bar wuu ka iibiyey markii ay isdhahaan isdhiibana waa kana niyadda uu dhisaa wuu dhiirigelina wuxuu ku dhahaa waa ka guulaysan rabtahay ha isdhiibin ugu dambayn midkaana laga guulaysana haddaa maqli jirtay hebel iyo hebel waa laga dhex faa'iidaystana waa midkan oo kale midkan kale igu daran saaxiibkiisoo alaabtii ku hor cunaa wuxuuna u sheegaa ugu dambayn inuu isagu guulaystay waxaad sheegaysaa marka qofka sida tooska ah muuqaalkan dhexdiisa ugu guulaystay muuqaalkan intaan ku ekaaya halkaas soo gaarta leegnosaar labadaa nin dukaankan ayaga iskale taleefanadii inta laga gada waayey ayay boorkan waxay ku soo qorteen qofkii dukaankeenna imaado taleefon friyaa siinaynaa ninkan waddada maraya arkaya kadib waxay ku dhahayaan haddaad dukaankeenna soo geshid taleefon lacag la'aanaa ku siinaynaa isaguna hadalkaas markii uu maqlo wuxuu dhahaa wax friya qof diidaya ma lehe gudahana geliya taleefonkii soo qaatee gudaha markii ay soo galeen midkaana wuxuu ku dhahaa meeshaan taleefonka arabtid waa ka soo qaadan kartaa marka orod gudaha la wareega soo qaado isaguna intuu soo baxuu gudaha soo galaya kadib hal taleefon oo soo qaadanaa markii uu soo baxana ninkan wuxuu ku dhahaa aniga taleefonkayga waa soo qaatay hadda ma bixi karaa kana wuxuu ku dhahaa diyaar waayo waa bixaysaa laakiin wax yar fadhiiso dadka aan taleefanada siinaa diiwaan gelinaynaye markii uu xoogaa ku dhowaad meeshii 20 daqiiqo fadhiya ayuu soo istaagaa kadib ninkii wuxuu ku dhahaa niyow haddii aad magaciiga qorto hadda ma bixi karaa xoogaa madaxa ay xanuunaye kana markii uu ninkan ku dhahay madaxa ay xanuunaye intuu kiniini meesha u yaalla soo qabto wuxuu ku dhahaa kiniinigana u jiiday takamool waaye marka waa cuni kartaa biyahaasna ku cab haddana waa inaad taleefanka lacagtiisa isiisaa haddii aad diidana booliska waxaan tusaa kaamirada markii aad taleefanka meesha kala soo degaysay midkan fulinimadiisana markii lagu dhahay
dhahay booliska kaamirada tusaa wuxuu dhahaa waxbana tusin lacagta intuu soo bixiyo siina markii uu wadada sii marayeen isaga wuxuu isku dhahaa walba telefoon ma haysan ee caadi way hadii la igaaday labadii kalena waa kuwana markii uu qorshoodii u shaqeeyay boorkii intay soo qaataan waxay bilaabayaan inay dadka ku dhahaan telefoon free ku soo dhawaada xogaa kadib ninka kale intuu u imaaday waxay ku dhahayaan adiga waliga telefoon niclaha wada jirta ee maanta telefoon weyn si free ku qaado isaguna wuxuu taagan yahay runtiina waaye niclaha wada jiray ee maanta waxa u maleynaa inuu nasiibkaygu fiican yahay intay soo wadaan gudaha soo gelinayaan kadib waxay ku dhahayaan sida ninkii hore gudaha inta gashay telefoonka ka soo baxso meesha isaguna markii uu gudaha galay oo waliba laba telefoon soo qaatay isagoo bixi raba midka intuu hor istaago wuxuu ku dhahaa lacagta iska bixi wuxuu weydiinaa lacagta ka sheekeynaysiin maxaa waaye Soomaalidan igu dhihin telefoonka free waaye qorshihiina miyaa dib ka bedeshiin isaguna wuxuu ku dhahaa anaka telefoon maana ku siin ee adiga soo degsatay markii aad soo degsiisana kaamiradaas ku duubtay ka waran da booliska u geeyay kaamirada isla markiina waxa imaanaya ninkii ay mar hore gaadayeen oo kaamira ka duubay wuxuu ku dhahaa dadka masaakiinta gaadiin fiidiyoogana booliska u geeyna kadib ninkan calaacalo bilaaba telefoonadii uu hayay intuu nimankan siiyo wuxuu ku dhahaa teleefoonadan qaata fiidiyooga sanadilada booliska tusinine ugu dambeeyna ninkan way ku dhacday waxa jirta maahmaah ku waajibtay ee soo sheeg muuqaalkana like saar